السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada channelkaygan webdev maalinta hore waxaan sameynay qaybta hore waxaan sameynay nav bartan qaybtan sare my website home about surfaces contact qaybtaas sare aan sameynay marka maanta qaybtan labaad waxaan sameyn doonaa qaybtan dhexe oo sawirka ku yaalo iyo qaybtan saddexaad ee qoraal ku qoran yahay marka labada qaybood baan maanta sameyn doonaa insha Allah marka aan bilowno ciddii ku cusub channelkan haddaad doonaysid inaad baratid qaabka loo sameeyo qaybtaas sare aad isticmaali kartid website-ka doontaad sameynaysid qaybta koowaad soo daawo markaan guda galno xagga nav barta hoosteeda ayaan ku sameyn doonaa qaybtan dhexe ee sawirka wadata marka qaybtan dhexe waxaa la dhahaa waxaan bixin doonaa hero ayaan bixin doonaa haddaad marka hero baa la dhahaa waxa ku dhex ridnaa iyadana container baa ku dhex ridnaa marka h1 baan dooranaya waxaan ku qoranaa welcome to my website welcome to my website aan ku qoranaa alright welcome to my website hoostana waxaa hoos dhigi doonaa qoraal yar oo paragraph ah adigana waxaan ku qori doonaa waxaa isticmaali doonaa lorem intaad ku qortid waxaad taabanaysaa on toban qaybtaas saas ku dheh marka qaybtan iminkaan sameynay waxaa ku hoos qarsoontay nav bartan aad qarinaysaa nav bartaasi ku hoos jirtaa iminka qaybtan sameynay nav bartaasi ku hoos jirtaa iminkaan muxuu hagaajin doonaa qaybtaas qaybtii haddaba qaybtii saddexaad waxaan sameyn doonaa iyadana qaybtii qoraal ku qoran iyadana waxaan bixin doonaa section dot container content section bahalka shaqeyn waaye dot bay ka horeysay sectionka waxaan doonayaa inuu laba glass baan doonayaa inuu yeesho glass waxaan bixinayaa container glasska labaadna content intaa markaan sameeyo ciwaankii baan u sameynayaa qaybta qoraalkayga hataa iminka soo baxsan ciwaankana waxaan uga jeedaa content 1 ciwaankaasaan uga jeedaa content 1 hataa soo baxday waxaa iyadana btagta waxaan isticmaali doonaa lorem waxaan isticmaali doonaa lorem 50 baan iska isticmaali doonaa qaybtaas saas ku dhantay haddana waxaan baahanay content 2 qaybta labaad saan u sameynay iyadana isla intii un baan sameynaa iyadana waxaan soo qaadanaa h3 marka h2 way ka yartahay marka ciwaanka yar waa content 2 iyadana paragraphka isticmaalna lorem iyadana waxaa isticmaali 50 baan odhanay iminka isku dhex daadsan yahay marka aan hagaajino haddaba iminka stylinkii baan u gelinaa haddaba saan u style gareyno waxaan sameynaa waxaan teginaa fileka style.css marka waxaa ugu horreysiinaa qaybta dhexe ee sawirka ah hero
ayaan ugu horreysiinaa. Waxaan doonayaa inaan sawir xagga dambe ka dhigo background image url-kii url-ka waxaan isticmaalayaa pixel.com. waxaad nii dhigi doonaa sawirka doonta isticmaali kartaa amba sawirkayga haddaad doonaysa inaad isticmaashid xagga hoose nii dhigi doonaa. nii dhigi doonaa waa kaa sawirkii soo baxay. hadaba background image-kii waa xagaa ka muuqda. haddaan doonaya inaan background image idhaaho waa inaan idhaaho muxuu ahaa waxaan doonaya inaan height siiyo 100 feet. 100 feet waxaa looga jeedaa screenka oo dhan buu qaadanayaa. 100 feet height waa kaa screenka oo dhan buu qaadanayaa. hadaba sawirkan yara hagaajinayaa. sawirkan doonaya hagaajiyo sawirka waxaan odhanayaa background repeat waxaan ka dhigayaa no repeat. sawirka inaan soo noqon background size-ka waxaa odhan doonaa cover. waxaan kala doonaya hagaajiyo background position-ka waxaan ka dhigayaa xagga hoose iyo dhexda. saas ku leeyahay. waxaan doonaya inaan qoraalka muxuu hagaajiyo color-ka white ka dhigo. waa kaa sawirka caadi color-ka white ka dhigo. weli qoraalkaas soo bixi lahaa waan hagaajinaa. waxaan ku display flex baan odhan karnaa. waxaan odhan karnaa justify content centerkan geynaa. hadda iminka align item center iminka imanaysaa dhexda. waa kaa dhexda yimi iminka qoraalkii. align item center position markaa iminka waa kaa haddaan weynaysiiyo waa kaa dhexdu joogaa sawirka. haddaan yaraan ku yar daro sida caadi wada aragtaan. caadi aan yaro weynaysiiyo sida dhammaantiin wada aragtaan. position relative baa odhani. margin bottom baan siin doonaa 20 pix. bimacnaa saan uga fogeeyo muxuu ahaa contentiga saan uga fogeeyo. okay qaybtaas saas ku dhantay. haddaba waxaan doonayaa set index siiyo -2. haddaba overlay baan doonaya inaan muxuu ahaa duldhigo amba qoraalkii muxuu ahaa qurux badan baan doonaya qoraalka usoo saaro. marka waxaan sameynaa hp before content baan odhanaa. position absolute baan siinaa positionka. top waxaan siinaa 0 aba xag sare bidixda waxaan siinayaa 0. widthka aba balaca waxaan siinayaa 100%. heightka waxaan siinayaa 100%. hadaba background color-ka waxaan siinayaa RGBA. madow baan ka dhigayaa waa 0. madowga 3 0 weeyaan 0. xaggan waa 0. xagganna waxa weeyaan waa opacity-ga amba color-ku suu muuqdo waxaan ka dhigayaa 0.5. waxaan kaloo siinayaa set index -1. waxaan doonayaa inaan haddaba qaybtan dhameeyey wataa iminka si clear iminka qurux badantay usoo baxeen. welcome to my website. si qurux badan bay iminka usoo baxeen.
waxaan maleynayaa xaggan waxa iga maqan waxaan doonayaa welcome to my website ka inaan bartan ka dhigay iyada xaggan waxa iga maqan inaan ku daro muxuu ahaa text align center baa iga maqan text align oo welcome to my website ayuu bartan ka dhigaya wakaa haddaba aan style garayno muxuu ahaa ciwaanadan haddaba hoose content 1 iyo content 2 hoosta isaga jiraan marka aan kala fogeyno marka waxaan sameynaa hero weli kuwan hortaan dhameeyo welcome to my website ku farta way yaryarta waxaan doonayaa yaro waaweynaysiiyo farta waxaan doonayaa markaa h1 hero ciwaanka welcome to my website waxa weeyaan waa h1 weeyaan marka waxaan odhanayaa waxaan ka dhigayaa font size ka 46 pixel margin waxaan doonayaa hoosta isaga jiraan labadaas inaan kala fogeeyo marginka waxaan odhanayaa kor baan yar qaadayaa 20 pix marka aan kala yar fogeeyey waxaan doonayaa b tagta welcome to my website ka hooseysa inaan iyadana style gareeyo hero iyadana waan ka yareysiinaya font size ka waxaan ka dhigi doonaa 20 pix waxaan doonayaa hoosta isaga jiraan letter spacing ka waxaan doonayaa ka dhigo 1 pixel qaybtaasaa ku dhammaynay waa taa qaybtaasaas ku dhan tahay marka waxay noo harsan qaybtan hoose content 1 iyo content 2 ga inaan iyadana style garayno iyadana aan galno iyadana waxaan style garaynaa marka ugu horeysa ciwaanada waa content h2 iyo .content h3 labadaas ay kala ahaayeen marka labadaas style garayno marka font size ka waxaan ka dhigi doonaa 150% waxaan doonayaa inaan ka yar fogeeyo content 1 ka qoraalka ka hooseeya inaan ka fogeeyaan doonayaa waxaan odhan doonaa 20 pixel 0 top and right waataa kala yar fogaadeen haddana waxaan yaray marka style garaynayaa paragraphkan biyada hoosta iskaga jiraan iyagana aan kala fogeeyo midabkana aan ka bedelo marka iyagana waxaan odhanayaa content b colorka aan ka bedelo colorka waxaan siin doonaa 555 ayaan siin doonaa waa ka uu ka bedelmay colorkii laynanku hoosta isaga jiraan kala yar fogeeyo line height baa la dhahaa 30 pixel marka imika way kala fogaadeen laynankii xarfahana aan kala yar fogeeyo letter spacing 1.2 pixel xarfihiina waan kala fogeeyey waa kaa website-keenii dhammaystiran navbarty waa taa home about qaybtan hero section-ka content 1 ka content 2 ga waxaad samayseen nooca website waxaad doonto sawirka doontaad ku bedelan karaysaa xagga my website waxaad doontaad ku qoran karaysaa xaggan home about surface contact Somali baad ku qori karaysaa waxaad doontid adaa contentskan waxaad doontaad ku qoran kartaa wixii subscribe next time ka amba marka kalena waxaan samayn doonaa iyadana website kale oo ka duwan sidan aad baad mahadsantihiin